waxaan islahayn bal wax ka weydiiyay isticmaalka iyo siduu u saameeyay dadka Soomaaliyeed. Soomaaliya waxay ahayd dalalkii Afrikaanka ahaa runtii waagii hore intuusan isticmaalku umanin nolol dabiici ah oo maxalli ah oo dhaqankooda iyo diintooda iyo mataqaanaa hay'ad ay ku nool yihiin la xiriira ayay ku noolaayeen waxay taariikhdu inoo sheegaysaa in dawladihii reer galbeedka ay qarnigii 19aad ay ku soo duuleen oo meeshaas la yimid Soomaaliyana waxay ka mid ahayd dawladihii Afrika ee halka runtii lagu qaybsaday sida aynu la socono Soomaaliya oo hal ummad ahayd oo hal dal wada deganeyd waa kii la qaybiyay dawladihii reer galbeedka ay u qaybiyeen ilaa 5 qaybood ay u qaybiyeen oo markii ay labadii dawladood ee Ingiriisku qayb u haystay iyo qaybtii Talyaani u haystay intay xoroobeen ay isku darmadeen waxay damceen inay u gurmadaan qaybihii kale ee gumaysigu haystay gaar ahaan qaybtii uu haystay Ethiopia ay haysatay oo ogaadeenaya loo yaqaano run ahaantii dawr aad u fara badan dawladdan iyadoo yar oo markaas curdan ah oo aan gaamurin ayay bilowday in ay gacan siiso qaybihii kale ee gumaysiga ku hoos jiray jabhado isdaba jooga oo kala gedisan oo fara badan ayaa dalka ogaadeenaya يعني كهالجماهي ومر والباي يصلقوا هيد يعني قرن كسومالي جمهورية أمريكا وصلقوها لحدني أفرتي تجعل أذك بعد عي وقبلني مطونة كبعدنا واكي تضبطني وتضبطي تجعل كي وينا أو رعي تجعل كاس واكي رمتي دلك بدنكي لو حرية حسيش واكوي دولته رير يعني برجعها وروشكو جاميني iyo Kuba iyo Jarmalya ay hogaaminayeen ay Ethiopia u soo qayshatay saas daraadeed shacbiga Soomaaliya runtii gacan aad iyo aad u ballaaran ayuu halganka siiyay taas waa mid keentay in shacbigii Soomaaliyeed ee horta ahaa la qaybiyay oo yani gobonnimadoodii iyo dawladnimadoodii ay baabaaday laguma daynin gobol loo qaybiyay gobol walba laga abuuray kooxo iyagu markaas ku xiran يعني كوميسي كهران وقدام بيتنا وياكي هدي قبصة بالكوميسي انتو يمد وقبصة دلكي وقبصة إلى حدنا وقعنت كهيا عاصمتي يدلكي أردن بدنك وقعنت كهيا قارو ستوس ومامرو يقارو ستة ضم مامرو سجيبا مامرو مات وقعنت كهيا. إن سوالي قبل أنا أقدرني حتى سوشك وحتري أساس كيد وحوها حولك يعني هؤلاء حولك المركي أي بلوضي وهذا تريدتني يو أفرتي إلى هذا الحين قصوم وحاب بدن بارنتي نوع قصومي هل جن مركي أتجلسوا هل جن كاس هل جن قبني ما دون هدوي هاي أو هو بيسن وين لبعض موت إن أد حقيقة سمرك أو الرئيس شعبي أقول تبرينا كنت هاجره وشعبي قاعد تاجر كيشو أو قضيتك كنت هاجره شعبي يجي كده انت دقن يا انت دبدها او عرتي انتو بقضيه عادي عاد بو تاغيرسين فكرداس عاد بو تاغيرسيه iyaga runtii wada taakulinta u weyn iyaga ayaa geysta taas waa garabka asaasiga ee saldhigga halganka ah dhinaca kalena waxa weeye waxaanu asaasnay jabhad hubaysan oo xoog leh oo hadda dalka darafihiisa kala duwan si buuxda uga howlgala Ethiopiana ku qasabtay runtii in aynan iyadu si nabadgelyo ayna dalka ku joogin marka military ahaan waanu dhisnay oo wax weyn oo qabsoomay shacbiga yagiina arinta uu nagu taageersan yahay oo mabda ahaan iyo policy ahaan uu nagu taageersan yahay taana waa runtii waa guul bay weyn oo gaadhay عادي حدودية ما دعي كسر جدا حقوق بناء gumaysigu dhaqankiisu waa basaas inuu dadkii cabiidiyo xadgudubyo badan oo ku sameeyo xadgudub kaliya tamay xasuubiyo fara badan
ayuu sameeyey wuxuu la kaan karaa xasuuq wuxuu markii uu Soomaaliya qabsaday uu ku duulay yaa wuxuu sameeyey qorshe kale oo intaa Soomaaliya uu ku sii jeedo in uu dalkan Ogaadeniya in uu dhibaato weyn u geysto wuxuu bilaabay inuu gubo wax alla wixii tuula ahaa iyo magaalooyinka yararka ahaa oo dhan inuu gubo shacbigii deganaa inuu barabixiyo waxa in uu laayo dadkii gaar ahaan layntaasi waxay noqotay layn aad iyo aad u foolxun oo aan ahayn layntii haddii bani aadamka habad intii lagu dilo uu dhinto waa layn waa wax la yaqaano dadkii oo siriq lagu jiidahayo lagu dilahayo dadkii oo la gowracayo qaar la gowracayo dadkii oo mataqaanaa marka la dilo aan meeshii lagu dilo loo dhaafin intii la qaaday meel xus ah lagu ridahayo marka waa dhaqan aad iyo aad u foolxun oo bani aadamka aan lagu arag ayaa runtii ka dhacay taasna waxay ahayd markii Soomaaliya lagu duulahayay ciidamada Itoobiya intay baydhabo tageen weli xamarayna qabsanin ololahaas baa la xaaqay dadkan reer Ogaadeniya ayaa la xaaqay runtii arrintaas arrin aad u foolxun bay ahayd hay-adihii yani hay-adihii humanitarian xuquuqul insaanka ahaa waa loo diiday in ay mataqaana ay dalkii tagaan waa loo diiday waxaa tiri waxaan gaarnay guulo military oo la taaban karo muddadii gaabnayd oo maarta hawshan hayseen marka idinkuma waxa u habaysan tihiin ku dhufo ka dhaqaaq mase waxaad tihiin ciidan tababaran oo ciidan kale kasoo horjeeda maraaxil bay maraysaa markii hore runtii waxay ahayd systemkaas oo ku dhufo oo ka dhaqaaqa muddaankaas kusoo jiray kabacdi waxaanu ciidankii u habaynay hab military ahaan oo dhismo military leh oo dhismo yani qaybo kala duwan oo qayb walba aag ay joogto leh oo si toos ah cadowgii ay hab military laba quwadood oo isku hor imanaysa ay yihiin marka hadda heerkaas ayaanu maraynaa heerkaasna muddo unbuu soconayaa kabacdina waxay runtii noqonaysaa heerkii ahayd in ilaa la qabto dhulka la qabto oo cadowga xoog lagu muquuniyo yaa marxaladaas la gaari doona laakiin hadda waxa weeye in quwadii ciidanka gumaysiga ee joogtay dalka qolo walba meesheeda lagu jilciyo maanta halkan la weeraro bari halkan la weeraro bari halkan la weeraro fadhiyadooda iyo xeryahooda lagu weeraro dagaalo waaweyn la iskaga hor yimaado la jilciyo loo muujiyo inaynan yani suurtagal ahayn inay dhulka haystaan waxaa la yiraahdaa Soomaali galbeed baa la oran jiray marka hore deegaankaas kabacdina waxaa loo baxshay Ogaadeen waxa dagaalamaya ma Ogaadeen baa ma soo Soomaalida meesha degan horta runtii waxaa meesha ku jirta laba arrimood oo magacan Ogaadeniya ma aha magac qabiil ujeedadu ma aha dalkan baa loo yaqaanaa Ogaadeniya maxaa yeelay gumaysigu markuu Soomaaliya uu qaybiyay wax Soomaali galbeed la yiraahdo ma ayna jirin maababka iyo dokumentiga dalkan lagu dhiibay iyo mataqaanaa habkii loo qaybiyay dalkan waxa loo yaqaanay Ogaadeniya loo yaqaanay dadka dagaalamaya waa dalkii dadka deganaa oo qabiil walba leh dalka deganaa way u dhayihiin haddii dadkan magaciisa Ogaadeen kale yiraahdo naftiisu kuma wada jiro meesha kama wada dagaalamayo dadkii kalena kama wada maqran marka waa dad dalka u dhashay oo qabiil walba uu ku jiro una halgamay inuu xoroobaan maalintii xoroobaan iyaga ikhtiyaar kala magac ay la bahayaan calankay qaadanayaan yani iyaga marka u taala marka waa taas waa midaas shacbiga reer Ogaadeniya ee gumaysiga Itoobiya oo haysto waxa kaliyeed ay kaga xoroobi karayaan waa midnimo iyo halgankaas oo taageeraan halgankaas oo adkeeyaan midnimo ay ku taageeraan qadiyada gobonimada inay waqtigan hadda ay xoog saaraan hiil iyo hoo dhiig iyo maal wax alla wax u heli karaan inay siiyaan mar inay gumaysiga ay ku xoroobaan sidaasina ku xoroobi karaan qadiyada inay taageeraan iyo halganka ay taageeraan maal iyo nool iyo waxay la heli karaan ay ku taageeraan gumaysiga ay ku xoroobaan si kala mar mahadsantiin aad iyo aad baad u mahadsantahay
Daddy.